munaasibadan ballaadhan ee lagu soo dhaweynayay qurba joogta u dhalatay gobolka Togdheer ee dalka dib ugu soo laabatay sanadkan ayaa waxa soo qaban qaabiyay mas'uuliyiinta iyo maamulka gobolka Togdheer waxaana madashan ka soo qayb galay barasaabka gobolka Togdheer maayir ku xigeenka magaalada Burco xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco waxaana ugu horeyn goobtani ka hadlay xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco iyo maayir ku xigeenka magaalada Burco iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye mas'uuliyiintan ayaa si weyn u soo dhaweeyay qurba joogta gobolka waxaana ay ugu baaqeen inay ka qayb qaataan horumarka ka socda gobolka isla markaasina maal gashadaan ujeedada wuxuu baahayd inaynu iskulanno oo aan idin soo dhaweyno oo wixii talaana siisaan ay soo dhaweynayna magaaladiinni ku soo dhawaadana dhammaantiinba qurba joogayga waan jecel lahay oo ku faanaa gobolkan wuxuu ku dhismay qurba joog ayuu ku dhismay kuna dhismi doonaa waxaan caawa halkan ku soo dhaweynaynaa qurba joogtii reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer qurba joogtii u dhalatay oo ka kala yimid daafaha runtii caalamka runtii waxaanu ku soo dhaweynaynaa gamco furan iyo niyad wanaagsan inooga calaamadsan yihiin qurba joogta reer Soomaaliland qurba joogta reer Togdheer sababtoo ah Togdheer marka la qiyaaso horumarkeeda cidda xudunta u ahi waxa weeye gamcaha ugu wacan ka geystay marka laga hadlayo dib u dhiskii Burco ama gobolka Togdheer waxa weeye qurba joogta dalka waxaad ka tihiin halbowle door weyn baa ku lahaydeen haddii ay tahay muxuu ahaa dhacdooyinkii soo dhacayay dalka ee dimuqraadiyadda lagu soo siqaayay idinkoo isahoo shakhsiyaada dalkiina ciddii wax ka qabsan karaysaaba ka qabsato jaanisyo badan baa ka furanay ayaa la idinka baahan yahay annaga xaggayna wax looga baahan yahay runtii inaanu soo dhaweyno waana soo dhaweynaynaa xaafadan iyo aagdhan baanu ugu magac daray xaafadda qurba joog inay soo dhistaan qaar ka mid ah qurba joog madashan ka soo qayb galay ayaa ka dareen celiyay munaasabadan waxaana sidoo kale ay aad u dhaliileen madaarka magaalada Burco oo isagu in muddo ahba iriduhu u laabnaayeen magaca qurba joogta loo sameeyay maanta xafladan ama casuumadan aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa sida noo soo dhaweyseen iyo sida noogu xeelantihiin aan fariin u dirayaa dawladda hoose maayarka maayar ku xigeenka dhammaan xildhibaanada taasoo ah magaaladii Burco waxaan ku arkaa dayac badan ay ka mid yihiin hospitaalkii Burco garoonkii diyaaradaha Burco oo aan wax alla wax laga qabtay aanu jirin annagoo qurba joog ah oo u dhalanay deegaanka Burco Hargeysa ka soo degnaa anta berberaaba noo roonayda markii la yiri Hargeysa laga soo deg de 4 hours baan soo saamaa 4 saacadood baan soo soconaa caruurihii way tabcaamayaan iyagoo ma tagay oo silcoos diyaarada ku soo jiray kiima kulli marka la yiri Hargeysa laga dego imisa saacadood baa la soo wada soconaya qof walba isagoo cagihii diyaaradu bararsay cagihii gaadhiguna barariyay baan halka ku nimaadnaa waa isku imaasho wanaagsan waxaana sidaanu mar dhaw ka wada hadalay ay sheegaynaa xafladan oo kaliya noqonayde xafladan ka weyn dhammaantood xafladan ka weyn in bilka bacdi loo qabto oo la isweydaarsado araayo badan runtii kulan aan markaan Hargeysa soo socday aan fadhiyay waxa la sheegay in loo gudbiyay madaxweynuhu maanta dhawado baxay u tagay imaaraadka wixii ugu horeysay oo u dhiibay ilaahna loo qabto airport-ka inay ahayd maaha munaasabadii ugu horeysay lagu soo dhaweeyo qurba joogta gobolka Togdheer balse waxa la filayaa in madal tan ka ballaadhan lagu macsuumo guud ahaan qurba joogta Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto TV-ga caalamiga Royal magaalada Burco.